weynaanta ilaahay baynu ku bilaabaynaa iyo jiritaankiisa aadna waan idin wada salaamaya waa mid ka mid ah tixaan hal abuurkooda leeyahay ujeedada iyo macnaha tixda qof waliba isagaa kala dhex bixi doona gudaha tixda waxay ku bilaabaysaa qofna laba nafood iyo qurukayda ma laho kuma dheera qayrkaa qofnimada in kaa maqan hadduu qiimo leeyahay adna qaali baa tahay qadarkiiyo nasiibkana eex laguma qaybine qalinkiiyo wixii maqan qoraal waad u simantiin qorshe yeela meel mara fikir qaado oo fuli qarnigaad ku nooshahay haddii aanad qamarkiyo qorraxdiisa noqon karin ha ka qadin warkiisiyo qisadiisa beritee taariikhda laga qoro qofka muuqda u noqo isqiyaas isqiimee isu noqo qareeniyo qofka dooda kula jira ha iska qarin xaqiiqada halkaad qoon ku leediyo qadafkaaga faalle ha qamici naftaadee kolka qaladku kaa dhaco qunyardoon sixiisoo dibintood qaniintiyo ha ku qaban ilkaha ciil hanti kuu qarsoon iyo hibadaada qaniga qasabooba soo saar qaybahaaga gaarka waxaad qaban karaysiiyo qofka iyo ciddaad tahay bal qumaati isu baro dhacdo qara lahayn iyo qaarkooda muuraha ha ku qaadan saacado ku khasaara weeye qofkan iyo dhaliishii halka quursi kuu yaal u qabyeelo oo dhaaf qabyadaada badan iyo waxa kuu qabsoomini yaani quusku gelinoo qorshahaaga noloshiiyo tacabkaaga yay qarin xilliyada qadhaadhkiiyo qandhadiyo la yaab kale waa ka qayb adduunkii qosol iyo ku dhaaftaco qalbigooda hoosiyo waxa ay qarsanayaan waa qayb ilaahay ficilkay qabtaan iyo ku qiimee garaadko dadka qayb ha diidine qofba derajo siiyo ha ku quursan aadmiga halkuu qoon ku leeyahay qaarna haynta maalkiyo ha ku qaadan duunyada qaybna faramanaantiyo ha ku nicin qadoodiga waxaa jira khuraafaad dadka lagu qaldaayo iyo fariin qoorta loo sudho qofka maanka gaabane qaarkood afkaaraa adigoon u qiil helin qowl kastoo arlada yaal ha ka qaadan aadmiga xogo aan qiraal wadan qaynuun ku noolow qaban kara naftaadoo adig iyo qudhaadani qorta xeer muhiim iyo qodob aan la dhaafayn waxaa jira qiyaamiyo maalintii qisaastoo way qamuunyo badantee qudhaanjada kolay tahay yaan kiis laguu qaban qalad naarta kuu haga qadaf weeye eexduye mar haddaad gar qaadood qalad dhacay saxaysana qudha aad ku weydide qaba ruuxa ee dalay qabqablaha dagaalkiiyo qaswadeenka tuuggii yaanu qaylo kugu hodin kolka ay qabiilkiiyo iskalaan qabyaaladi qoyskaaga hoosiyo qofka aabbahaa dhalay ha ku raacin qiil jaban noloshuna qiyaas iyo qunyar dhugasha weeyo way qaybo badantee qul u eeg su'aalahan iyadoo qalfoofkiiyo qaybaha jidhkaagiiyo bal qofyow naftaadani mid qudhaata kuu yiin hadday dani qasbaysoy kugu qabato xaaladi araggoo la qaadiyo maqalkoon wax kuu qaban bal go'aan ka qaado midkan qaadan layshe hadday dani keentaba in lagu kala doorasiiyo oo ilaahay ku idhaahdo araggaaga iyo maqalkaaga midna waan kuu daynaya midna waan kaa qaadanaya midna lah midna isii kolley anugu indaqabkaan la hadlaayo adduunka waxaan soo dhalaa dhegelamayaan baad ka soo baxaysaa indalaantaa kugu daro mar kalena qiyaasoo bal ka qaad tijaabo kala qeex awoodaha qalbigiiyo wadnaha iyo ilkuwa ay qabtaan oo iga sii qiyaas dhaba qaayahay isdheeriyiin qaangaadhka maankiiyo qofka aan caqligu korin qayax oo bal kala saar jidhka meel qarsoon iyo wejigaaga quruxda leh qoomaha u kala door midkeebaa qaniinyiyo kuu fudud qanjiirada haddana waa marka qofka bini'aadmigaa la waajiyo waxaad arkaysaa isagoo sidaa qofka almacnow shaygii halkan ku dhici lahaa ayuu talminaya labada shaybana tan iyo tan ruujiisu bay ka mid yihiin laakiin sababta tan xanuunka ula ay haysanayso eed wejiga uga qabanaysa waxa dhaawac halkan kaa soo gaaraya waxa ka dara dhaawac tan kaa soo gaaraya taas waa dad gacanta ku dulmaysaa ood wejiga ugu dulmaysaa layama way dulmantay oo xanuunkii baad u dhigaysaa qalbigaaga faaruqi qandhadiiyo jacaylkiiyo iska reeb qamuunyada qub xusuusta qaarkeed qofka tegey qofkaa maqan qofka nacay qudhaadii qofka helay qofkaa kale qofka yeeshay qoys kale qofka aan ku doonayn uma qalantid ruuxaa qalbigaaga jabiyee ha u raadin qiil kale